waad ogtihiin bishii Agosto 2014 ayaa dacwadda badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague. sababtaan u geynana waxay ahayday laba jeer dowladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dowladda Kenya berigaas inaan ka wada hadalno arrinta dacwad intaanay gaarin. laba jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeennii arrimaha dibadda ee berigaa joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda federaalka ah iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hogaaminayay. waa laga wada hadlay labadii jeerba, waa la isku noqday, mar labaad la isku noqday, waa la isla keeni waayay. haddii marka la isla keeni waayay dowladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku iraahday dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga. dowladda Soomaaliya go'aankaas ay qaadatay berigaas sidaas la yeelay, dacwadan ka geeyay dowladda Kenya. taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar horena waa ka hadla haddana ku celiyo dacwad inaan ka geeyno macnaheeda annagay Kenya inaan isdagaalsannahay ma ahayn. dacwaddaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhex marin. annaga Kenya laba daloo deris ahaan nahay, rabitaankayna deris kuma ahin. marka optionka keliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku iraahday aan cilaaqaad fiican iyo deris wanaag fiican inaan lahaano, si marka deris wanaaggaas iyo cilaaqaadkaas fiican u jiraanaan u aadnay maxkamadda caalamiga. waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed dhanna way ogtahay maxkamadda keyskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xumo ah iyo wax war xumo ah oo dhex maray ma jirin. madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday, anigoo markaas berigaas madaxweynihii jooga ah dalkaas dhowr mar booqday. shirkii igadoo markii ugu horreysay maxaa halkan lagu qabtay qadiyado badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami leh dowladda Kenya ay nagu garab istaagtay berigaas oo ay dowladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay. marka wax cilaaqaad xumaa ma jirin, dacwaduna waa taagneed, waa socotay. marka horta keyska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd. maxaa jira marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay. 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. dowladdeennu mar walba waxay noo sheegtaa in ay diidanayd in dib loo dhigo, laakiin wax caddaynayo dowladdeennu in ay diidanayd marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin, golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay ee sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku iraahdaa baarlamaankana lama wadaagin, laakiin afkana looga sheegaa la yidhi annagu waa diidanayd. maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodobuu leeyahay, qodob hebel loo cuskadaa. markii sidaan oo kale dacwadda dib ha loo dhigay xeerjajab ay tahayna labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisahay dhinac ay u gaartaa. in markii koowaadna codsigii Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho, markii labaadna codsigii Kenya aqbasho, markii saddexaadna codsigii Kenya aqbasho. waxaan islahay meeshaas warkaasi sax ma ahan qaba aniga. haddii uu sax yahayna dowladdu waxay ku dhiira lahayd dadaalkii ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto oo aan ahayn annaga saanaan niri aan ahayn. marka taas waa middaas. meesha kaloo ayadana ay muxuu ahay dhibaatada ka jirto, dacwadda waxaa mas-uul ka ahay dad Soomaaliyeed ah hogaaminayay dacwadda. looyar caalami ah oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hogaaminaysay dacwaddeenna. waa la wada yaqaanaa, dadku way yaqaanaan wejigeeda iyo muuqaalkeeda iyo aad keenta Muna Sharma. xeer ilaaliyaheenni guud ee berigaa joogay oo aan hadda joogin, Muna Sharmaan hadda ma joogto, ka mid ma ah kooxdii dacwadda waday. xeer ilaaliyaheenni guud ayaa asna ka mid ahay dadkii dowladda sida 3 qofood dowladdu u saartay, 2 qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray. xeer ilaaliyaha guudaa ka mid ahay oo ka mid ahaa tiimka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray. waad ogtihiin maxkamadda muga laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray, dalka mugu ku soo noqdo seminaar iyo workshop iyo qaban jiray, xeer ilaaliyuu ka hadli jiray, baarlamaanka hortagi jiray ka hadli jiray, dadka Soomaaliyeed si macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan. safiirkeennii noo joogay midowga Yurub
ayaa ka mid ahaa saddexda qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilna ka isagoo qofka maxaan ku yidhahdaa contactiga safaaradda ay la soo xiriiraysa labada qofood la soo xiriiraysa qof ka mid ahaa saddexdii qofoodba maanta midna kama joogo dacwadii keiskii faraha ay ku hayeen kuma hayaan saddexdoodiiba intaas waxaa ka sii daran dowladdu nooma sheegin ciddii lagu beddelay saddex qofood waa la beddeli karaa waa dhiman karaan ayagaa muxuu ahay shaqada ka tegi karo khaladaada inta garaanaaba muxuu ahay shaqada laga eriye wax kastaa imaan karo laakiin meeshii mas-uuliyaddii yaa loo dhiibay ilaa maanta ma ogin looyaradii afartii gaalmaa isku hartay ajnabiga ahayd bas maa gacanta ku hayso safaaraddeennii brussels aniga ilaa hadda maba ogiba in safiir loo magacaabay in kale yaa jooga warqad rasmi ah oon anna madaxweynuhu qorayna saddexda qofoodba ay ku shaqo tageen ay shaqada ku hayeen xeer ilaaliyihiinni guud waa joogaa ma oga inuu dacwad badeed oo shaqo ku leeyahay booskiis waaba la joogaa laakiin shaqo ma ku leeyahay war kays dacwo markuu jiro waad ogtihiin bulshada rayidkaa tegi jirtay saxaafadda soomaalida dadka socdaa tegi jiray baarlamanka dadka socdaa tegi jiray qurba joogta muxuu ahay dowladda soomaaliya marti qaadi jirtay inay ka soo qayb galaan oo ay dhegaystaan oo ay dadka soomaaliyeed la wadaagaan wixii meesha ay ku soo arkeen war maanta yaa ka qayb galay yaa og yaa ka warrama once a while marmar waxaan maqnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo maxaan ku idhahdaa ka hadlaya nin qiimo badan sharaf leh mas-uul ah soomaaliyeed waaye laakiin dacwaddaani ra-iisul wasaare ku-xigeen iska male wasiir male maxaan ku idhahdaaye madaxweynaha iskale dacwadaan warqad madaxweyne leeyaha lagu geeyey dacwada dadka wakiilka ka ah warqad madaxweyne leeyaha lagu magacaabay waxaan rajaynayna oo niyad samida ay ku jirto waxay ahaday madaxweynuhu dadku inuu hor yimaado oo dadku u sheego waxa jira ma xasuusto aniga maalin madaxweynuhu dadku hor yimid aan ka ahayn waraysigii dagaalkii kenya oo kenya oo dowladda kenya iyo dalka kenya dagaal lagula jiray aan u arkayne qadiyad dadka looga hadlaya aanan ahayn bad ku saabsan baddeennii marka xaaladdeeda muxuu ahaay meeshaasay maraysaa marka waxaan rabnaa in maxaan ku idhahdaaye baddii ay saas noqoto oo dadkii soomaaliyeed aanay garanayn waxa maanta ay ku sugan tahay annaga iyo dalkii kenya cilaaqaadkeena uu isku xun yahay sababta keliya annaga kenya cilaaqaadkeena loo xumeeyo waxay tahay dadka soomaaliyeed in laga leexiyo mashaakilaadka faraha badan ee dowladda haysto ee hoggaanka dalka iyo madaxda iyo xukuumadda kulli ay ku dhiiralayiin dadku inay hor yimaadaan wax u sheegaan dhibaa dalkan waa dal dhibaato duruufo gaara ku jiro dhibaatooyinku way dhacayaan way jiraan laakiin dadka in la hor yimaado loo sheego dhibkaanaa jira waxaanaan maantana haysto sidaanaan dadaalkaanaan ka samaynay waxaanaa ka dhacay saanaan rabnaa inaan u wajahno ama maxay idinla tahay la yidhaahdo dadka lasoo hor istaagoo loo sheego lagu xeego ma aragteen weli dowladdeennu waxaan ka hadlayso marka mashaakilaadka yaryarka ee gudaha ka jira iyo kuwa waaweyn intaba si